ayaga Somaliland xaq muu leeyihiin inay ictiraaf oo helaan oo goonigoosida xaq uma lahan qaba anugu. Okay. waxyaabaha ay sheeganayaan oo laga soo bilaabay 60kii ilaa 21kii sano xukunkii militariga Soomaaliya iyo wixii ka dambeeyana marmarsiina been waan aaminsanaa sababtana waa ku sheegayaan. 60kii markii la midoobayay calanka shuruud la'aan keena markay ku leeyihiin calanka shuruud la'aan markiina shacbigooda ku khasbay sababtoo ah koonfurta 10 sano la diyaarinaya Talyaanigu aad dawladnimo loo diyaarinayay oo loo tababaraya maamulada administrationska loo tababaraya ciidamada kala duwan marka gobol koonfur la yiraahdo diyaarsan oo dawladnimo loo diyaariyay iyo iyagoon la diyaarinay kedis la yiri qaata muxuu ahay calankiin ayaa lagu midoobay iyaga yimid anagu taariikhda waa naqaanaa guddigii yimid xataa markii xukuumadda la dhisay cigaal in ra'iisul wasaare laga dhigaa la soo jeesay waxa diida guddigii waqooyiga ka socda oo la xaajoonay guddiga koonfurta ay dhahan diyaar manina anagu iyaga yiri haddana waxay ku leeyihiin madaxweynihii qaadata koonfurta waagaas oo ra'iisul wasaarihii qaadata oo taliyihii militariga qaadata oo taliyihii booliiska iyagaana fasax marka sababta ay diideen maxay ahayd uma diyaarsanay xafiis looma diyaarin maamul looma diyaarin amni looma diyaarin marka ma haynin markii dambe oo ay dawladnimada hana qaaday oo ay socotayna ciidamaday qayb ka noqdeen ra'iisul wasaare yeesheen maxamed ibraahim cigaal leeyahay Allah u naxariistee 9 sano kadib military baa dalka qabsaday golihii sare kacaanka oo militariga ah 25 ay qaybtoodii ku lahaayeen xisbiga hanti wadaaga golihii saddex iyo wasiiradiisa qaybtoodii ku lahaayeen marka in la yiraahdo maxamed siyaad barana gumaaday iyo koonfurtana gumaaday waxba kama jiraan madaxweyne ku xigeen mar walba lahaayeen wasiiray lahaayeen safiiray lahaayeen nimanka jabhadaha hogaamiyay siilaan iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaalida oo ahay Sooma Muuse Bixigan waa taqaana wuxuu ahay sarkaal ciidamada cirka Soomaaliyeed oo ku caasiyay calankii ka dhigay ninka ragga waxaas marka marmarsiina waay xukunkii militarigu wuxuu ahay xukun militari ah oo inta la dhaliilay jabhada ku dhasheen oo lala dagaalamay jabhadihii la dagaalamay iyagu qaybay ka ahayn kuwii kale Soomaalida kala ahay iyagu markay isbiirsadeenna inta heshiiyeen dawladdu waa dhisi waayeen dagaal sokeeye waxayna dhaxalsiiyeen Soomaaliya inay qaxooti noqoto sharafkeena dhumo hantideena dhunto taariikhdeena dhunto marka ay leeyihiin waana la gumaaday oo koonfurtana gumaadaysay koonfurta dhexdeeda maxaa ka dhacay barkadaal lagu gubaya dad maxay quburo wadarada ka dhacda badan jasiiro muqdisho agtiisa gobol ayna regime lagu kacayo lala dagaalamay asaguna isdifaaci u ah marka cid weeso u dhowrneed oo ka badbaaday ma jirto xukun ay qayb ka ahaayeen wuxuu keenay marka inay cid kale ku eedan maahay kadibna marmarsiinada aheeday koonfurtu nabad maaha koonfurtu markay hadda nabadda ay gaarto dawladnimadu inay hana qaadaysa la arkay muxuu sameeyay Muuse Biixi muxuu ku dhigay laascaanood waxa ka dhacay miyaa indhihiina ka qarsan yihiin maya